asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada darsi ka mida duruustii higaada qur-aanka kariimka ahayd khaasatan ku saabsanaa jiz tabaarik suurat linsaan insha allahu tacala kan waxaanu ka sharxi doonaa wixii higaadee u baahan in laga soo saaro suurat linsaan iyo xuruufta markay isku xidhmaan sida loo akhriyayo ha baa ugu horeysa laam sukuun labaa ku xigta waxaa loo akhriyaa hal alifyata iyo ta'dan waxaa ku xigta alif iyo alifta iyo ya-da marka israacaan alifun baa loo akhriyaa hal ataa cayn iyo laamkan waxaa ku xiga fadxa waxaa lagu hamsatul wasligaas laga boodaya laamka lagu dhufanayaa calaa buuha asalkeedii maadaama halkana uu sukuun saaran yahay halkana uu sukuun saaran tahay isku akhri waxa isku calal hamsahan kasrana akhri calal insaani xii nuunkan waxaa saaran tanwiin waxaa ku xiga miim waxaa la idqaam xiinum xarakateen ku hay xiinum min addahri halkan waxa la allaam ashamsiya nuunta fadxaysan waxaa ku akhridaa daalkaasi oo hamsatul wasliga ka bood min addahri lam yakun buha asalkeedi nuunka waxaa ka dambeeya shiin xuruuf alikhfa la yidhahdaa xarakateen ku hay lam yakun markaad akhrido yakun haddana shay waa shiin iyo yaa hadan hamsahana waxa saaran tanwiin miimka ku qabo idqaam isaguna weeyaan shay-an madkuura ro-dan waxaa ugu dambeysa oo saaran fadxateynka ama markaa tanwiinta lagu istaagayana waxaa la yidhahda madu tamkiin waxaa loo akhriyaa alifa loo bedelaa madkuura inna khalaqnal nuunka laamka ku dhufo khalaqnal i halkaana nuun baa ku jira reeban oo siin ka daba dhacay waxaa la yidhahdaa ikhfa inna khalaqnal insaana siinka alifa ku xigta hayloobin al insaana min ayuu ahaa laakiin laba nuun baa iska daba dhacay nuunka hore xarakateyn ma laha oo sukuun buu saaran yahay kaka dambeeyana waxa saaran dama halka waxaa lagu tusaya in laba nuun oo iska daba dhacaynu yihiin oo laisku dhex idqaamay min nutfatin ayuu ahaa tin imika tanwiintan waa la muujinaya maxaa yeelay hamza ka dambeeya xuruuftii hamza min nutfatin amshaajin nabtaliihi liihi madu bilyaa liihi fajacalnaa nuunka alifaa ku taagan fajacalnaahu samiican buhaa oo tanwiin buu ahaa asalkiisii tanwiinka iyo bacda marka iska daba dhacdana waa la isdhex geliya maxaa la yidhahdaa aliqlaab samiican basiira inna hadaynaahu hadan damaha saaran waxaa ku akhridaa siinkaasi hadayna nuunkana alifaa ku xigta hadaynaahu sabiila inna hadaynaahu sabiila imaa shaakiran buhaa asalkeedii tanwiintani waawan isdhex geli oo idqaam iska dhig idqaam baa la yidhahdaa shaakiran wa imaa kafuura inna mad baa dhashay madadka ku noqo haddaad fahmi weydo casharada madadka ku noqo 2 iyo 4 iyo 6 baad jiri kartaa inna jiid inna actadnaa laba laam lilkaafiriina salaasila calaamadaasi waxay ka dhigan tahay dhawaaq la-aan aliftaasi laguma dhawaaqayo salaasila laamka un sii fadxihiisii salaasila wa aglaalan buhaa asalkiisi tanwiin lan marka soo dhigan sigaadi maxaa soo dhigatay lan lin lun samahayn marka lantani marka waawa ka daba dhacay idqaam baa la yidhahdaa isku dhexgeli isku idqaam وأغلالا وسعيرا إن نونك شدن حركتين كوهي إن نونك مكا كله فولامك إن الأب را يشربون مد بالواو يشربون من أيها أسر كيسي من هسيشي نونك هموشيني مكا نونك يكافك اسكولح قرية ولا إخفاء اسكولح دبول min ka'sin kaafka hamsa ku xiga hamsahana sukuun ba saaran ka'sin sintaasi tana waa lamidoo kaafa ka dambeeya ikhfa ka dhig
min ka'sin kaana misaajuha kaafuuraa. haddaynu soo qaadano bejka ka dambeeyey insha allahu tacaala. haddaynu intan akhrino insha allahu tacaala waxaanu caynan ayuu ahaa caynan, hase yeeshee nuuntan tanwiin baa saaran, yaa baa ka daba dhacday, idqaam baa la yidhahdaa. caynan yashrabu biha cibaadullahi. marka uu ka daba dhaco allah ismuljalaala duma iyo fadaxo waa la weyneynayaa. cibaadullahi yufajiruunaha ruu. markaynu soo dhiganay gaadii muxuu ahaa roo ri ruu. soo madu bilwaaw, madu bilalif iyo madu bilyaa. imikana raadii waxaa ka horeysa dama jiid, xarakateen jiid. ruu ruu yufajiruu. nuunka iyo haadana fatxa saaran labadaba, haadana alifa ka dambeeya. yufajiruunaha tafjiira. yuufuuna madu bilwaaw, madu bilwaaw. yuufuuna. ba'dan hoosarka dhaban waxaad ku akhridaa nuunkaa shideen. binnadri wayakhaa madu bilalif. fa'dana madu bilwaaw. fuuna wayakhaafuuna. yowman buu ahaa asalkiisii. tanwiintan iyo kaafkan isku akhriya ikhfa iskaga dhig. yowman kaana sharuhu. midkan maynaan dhiganin insha allah waa sharxi doonaa, laakiin xarakateen akhri. sharuhu madu bilwaaw weeyaan. sharuhu mus miim iyo siin. ta'dana waxaa faaran fadxa. musta. toodana hoos dhow siin. mustatii raa raa marka fatxateen ka dhig. mustatiira. wayuطcimuuna. nuunkana tooda ku akhri. wayuطcimuuna aطcaama. hamsatul wasliga haddaad fahmaydo darsiga la yidhahdo hamsatul alifta, hamsatul wasli iyo alif, hamsatul wasli iyo alifta caadiga darsigaa ku noqo. wayuطcimuuna aطcaama calaa xubbihi. haadan maxaa ka dambeeya ya, xarakateen akhri. xubbihi miskiinan buu ahaa asalkiisi tanwiintan, laakiin waxaa ka dambeeya waaw, idqaam ka dhig. miskiinan wayatiiman waasiira. halkana waa lamin tanwiin iyo waaw. inamaa nuطcimukum liwaj. jiimka marka uu sukuun saaran yahay waxaa lahahda qalqala iyo todan iyo todan iyo wixii qalqala oo waxaa lahahda qutbun jadun baa lagu soo ururiyey. waxaa la siiyaa cod isku dhacaya ood moodo inuu saa uga soo boodayo oo kale. nuto liwajihillaahi. iminka allahdan iyo allahda halkaa ku jirta, ismuljalaalaha halkaa ku jira iyo ismuljalaalaha halkaa ku jira, kala dhawaq bay leeyihiin. maxaa keenay sababta ma isweydiisay? halkan waxa la yidhi liwajihillaahi, halkana maxaa la yidhi cibaadullahi. allah iyo liwajhillaah. laah looh. marka walaad kala fahantaa. alif laamta ku jirta ismuljalaala waxaa la weyneeyaa marka fatxa iyo dama ka horeeyo. haddii hoos dhow uu ka horeeyana yaree oo khafiifi oo ha odhanin loo ha dhigin, ha odhanin. waxaa tiraa laam loom maaha. waxaa tiraa liwajhillaahi laa nuriidu minkum. nuunkii reebanaa kaafa ka dambeeya. minkum jazaa. maxaan u dheereeyey xuruufta madka ku noqo, casharada madka ku noqo. jazaan tanwiiniya waaba iska daba dhacay idqaam. jazaan walaa shukura. shukura. inaa nunka ku xijay shadkiisa. inaa nakhaafu. min buu ahaa asalkiisii min iyo ra. haddaba nuuntan ha akhriyin.
min rabbina maxaa yeelay waxa weeyaan idqaam kii aan qunaha lahayn oo ha qunaynin min rabbina yowman buu ahaa asalkiisii miimtan waxa saaran tanwiin cayn baa ka dambeeya idhaar muujin yowman cabuusan buu ahaa asalkiisii qaaf baa ka dambeeya wa xuruuful ikhfaa cabuusan qom qaaf iyo miim qomطri haddana ya baa ka dambeysa waa xarfu maddubliyaa qomطari ra'daana labada fadxa saaranya ama tanwiintu saaran tahay waxaad ka dhigtaa alif qomطarira fawa qaaf alif fawaqaa ha iyo miim dama saaran humu fawaqaahum allahu shara dhalika kaafkan iyo laamka isku dhufo dhalika alyawmi walaqaahum nadrah ayuu ahaa asalkiisa haddaad ku istaagayso haddaad tanwiintan ta'da saaran waxaad ku akhridaa wowgaasi waxaad odhanaysaa nadratan wa suruura wajazaa zaayida waxaa ka dambaysa aliftaas wajazaahum miim iyo baabaa iska daba dhacay iyagana isku idqaam miimka reeban baad ku dhigan doontaa insha allah xukunkiisa idqaamu shafawi baa la dhahdaa wajazaahum bima sabaruu jannatan waxariira muttaki'iina wa hamsa kasra hamsihii kasraha saarnaa maxaa ka dambeeyey maxaynu soo dhiganay xuruftii madka u muttaki'iina halkaa hayloobin muttaki'iina oodad tirahdo halkan aad in akhrido oo tirahdo ta'dana ka saaran shad hamsahaasi waxaa saaran hoos dhow yabaa ka dambeysa waxaa odhanaysaa muttaki'iina fiiha calal caynka laamta ku dhafo calal ana akhri calal ra'dana akhri fadxa saarin calal aro ra'dana maxaa ka dambeeya alif iyo mad calal araa'i hamsa kasra calal araa'iki haddaad doonaysaa isku xidho على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا halkaasina ku joojin doonaa insha allahu tacaala ilahay nagu anfaco dhammaantiinba qur-aankana ha inooga dhigo miduu u shafeeco qaado maalinta qiyaamaha wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu